qiiqa cirka ayaa ku soo badanaya waqooyi galbeedka Pacifiga, gaar ahaan gobolka Washington. Waxaad isku ilaalin kartaa inaad gudaha ku xarooto marka uu qiiq badani ka jiro dibadda. Qiiqa aadka u badan waxa uu waxyeelayaa indhahayaga iyo dhuuntayada. Waxa kale uu keeni karaa xaaladaha sida cudurka neefta, borokiintada, wadne istaagga iyo stroke. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso yaa khatarta ugu badani ku jira marka uu qiiq badani ka jiro dibadda. Carruurta yaryar, dadka ka weyn 65 sano, haweenka uurka leh iyo xayawaanka gurijoogga ayaa u nugul khataro caafimaad oo weyn oo ka yimaada qiiqa dabka ka dhasha kaymaha. Sidoo kale waxaa khatar ku jira dadka qaba xaaladaha caafimaad ee joogtada ah sida neefta, cudurrada wadnaha ama xitaa hargabka caadiga ah. Dadka ka shaqeeya bannaanka ayaa halis sare ku jira. Xitaa dhallinyarada caafimaadka qaba ee jimicsiga dibadda ku sameeya xilliyada dhacdooyinka qiiqa waxaa dhici kara in la dhigo isbitaalka. Waa muhiim dhammaanteen inaan iska ilaalinno neefsashada qiiqa dabka kaymaha ka dhasha oo aan isku ilaalinno gudaha guryaheenna. Sideen u hubin karnaa in tayada hawada dibadda ay tahay mid aan fiicnayn maalmaha qiiqa uu jiro? Mar walba ma qiyaasi kartid tayada qiiqa adigoo ka eegaysa daaqadda. Ka raadi internetka tayada hawada. Ka fiiri aabka cimilada ama eeg airnow.gov. Fadlan ogow in website-ku uu ku qoran yahay luqadda Ingiriiska oo keliya. Haddii halbeegga tayada hawada ama AQI uu ka sarreeyo 100 aagga oranjiga, qof kastaa waa inuu xadidaa dhaqdhaqaaqa dibadda. Carruurta, dadka da'da weyn, qof kasta oo uur leh, dadka qaba xaaladaha caafimaad ee joogtada ah iyo xayawaanka gurijoogga ah waa inay gudaha ku xaroodaan. Haddii AQI uu ka sarreeyo 150 aagga casaanka ama buluugga casaanka, qof walba waa inuu gudaha ku xaroodaa haddii kulayl ba'ani uusan jirin. Waa muhiim inaad nadiifiso hawada gudaha maalmaha uu qiiqi jiro si ay u nastaan sanbabada. Dad badan ayaan haysan qaboojiyaha guriga, waxayna u baahan karaan inay furaan daaqadaha qaarkood haddii uu kulaylku uu kordho. Qolka oo hawadiisu ay nadiif tahay wuxuu kaa caawin karaa inaad caafimaad qabtid. Qolka jiifka ama qol kale oo albaaba iyo daaqado tiro yar leh ayaa ugu fiican. Xir daahiyada oo shid marawaxadaha si aad u qabowdo. Filterka HEPA ha ku shidnaado qolka ugu hawada fiican si aad qiiqa uga saarto. Xasuusnow inaad iska ilaaliso inaad wax ku kariso shooladda, dubista, shumac shidista iyo vacuumka. Hawlahani waxay kordhiyaan wasakhowga hawada gudaha. Ku qaado wakhtiga ugu badan ee suurtagalka ah qolka hawada ugu fiican leh si aad faa'iidada ugu badan uga hesho. Khatarta kulaylku way ka badnaan kartaa mid daqiiqa. Dhagayso jidhkaaga iyo sida aad dareemayso. Haddii gurigaagu uu aad u kululaado, aad guryaha asxaabta ama goobaha dadweynaha sida maktabadaha ama suuqyada oo leh qaboojiyayaasha. Haddii aadan ka maarmi karin inaad dibadda u baxdo xilliyada qiiqa uu jiro, qaado tallaabooyinka si aad u ilaaliso caafimaadkaaga. Ka fogow dhaqdhaqaaqa jireed oo culus, marar badanna naso. Maaskarada N95 oo si fiican ula eg wejiga ayaa sifayn karta walxaha qiiqa oo si fiican kuu ilaalin karta. Mid u diyaarso xaaladaha degdega ah marka uu jiro qiiqa. Fadlan la wadaag tallaabooyinkan asxaabtaada, qoyskaaga iyo deriskaaga si ay u badqabaan xilliyada uu qiiqu ka jiro dibadda.